dhammaadkii qarnigii 20aad 1991 ayay ahayd markii dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay si rasmi ah u burburtay gabi ahaanteedba. ruhaantii waxay ahayd xilli adag. dagaal sokeeye ayaa dalka ka dhacay, waxaana abuurmay jabhado kala duwan. caasimadii dalka Muqdisho dagaalada gudaheeda ka socday iyo madaafiicda ku soo dhacayay magaaladana waxa ay barakiciyeen dadkii deganaa. dhibkaas weyn bay ummaddu ku jirtay. waxaa jiray jahwareer xoogan, dadkuna waxa ay isu dhaafdhaafayeen magaalooyinka iyo tuulooyin kala duwan. qof kasta meeshii ugu horreysay wuu cararay. sawir cajaa'ib badan, meel aadan hore u deganayn, guri aadan ku lahayn, dhaqaale kaaga soo horreynin. magaalada Boosaaso ee gobolka Bari oo ka mid ahayd magaalooyinka sida weyn ay u degeen dadkii faraha badnaa ee ka soo cararay dagaaladii sokeeye ee dalka qaybtiis ka socday, kama jirin adeegyada bulsho dhammaantood. haddii ay tahay waxbarasho, caafimaad, guryo ku filan dadka, biyo nadiif ah, mana jirin cid u diran daryeelidda danyar iyo agoonba. kolkay xaaladii sidaa tahay, nin iyo taladii loo baahane waxa isxilqaamay aqoon-yahan iyo waxgarad Soomaaliyeed oo garwaaqsaday dhibaatada ku habsatay dadka Soomaaliyeed inay gurmad, badbaado iyo xeelado lagu wanaajo ay u baahan tahay. waxaa fikirkaas ka dhashay asaasidda hay-adda waddaniga ah ee Tadaamun oo ka mid ah hay-adaha maxalliga ah kuwa ugu waaweyn ee ka jira Soomaaliya. xafiiskeedii ugu horreeyena laga furay magaalada Boosaaso sanadii 1992 oo aan ka warbixinayno waxqabadkeedii 30 sano ee la soo dhaafay. xilligaas marka Tadaamun markii la asaasiyay waxay ka duuleysay soo celinta rajada ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed. bulshada Soomaaliyeed oo dagaalka dhalinyarada iyo dabka lagu shidayo looga hortago oo aan la isku leenin ubadka Soomaaliyeed ee la kala badbaadiyo. waxaanuna arkaynay waxay wax ku badbaadi karaan inay tahay ummadda oo jahliga lagala dagaalamo. soo ifbixii ay Tadaamun u soo ifbaxday waxay u ahayd qorax soo baxday. qorax soo baxday bay u ahayd sababtoo ah waxa weeye mar hadday jahliga la dagaalamaysay waxa la barto halhayskeeduna yahay qoriga dhig qalinka qaado. marka caqabadaha soo wajahay waxaa ugu badnaa taageero la'aan markii ugu horreysay. dadkii oo aan fahansaneen waxa uu yahay organisation samafal. arrintaasi marka ugu dambeyntii waa lagu guuleystay. waxaa la helay dad badan oo Soomaaliyeed oo fahansan waxa urur samafal uu qaban karo ama uu qabdo bulshada u qabanayo. qayb weyn bay ka geysteen. hadday tahay inay ka shaqeeyaan voluntarily uga shaqeeyaan, haddii ay tahay inay tala ku darsadaan, haddii ay tahay maxay inay u qareemaan ay u raadiyaan maxay ahayd fan cid kale oo fansiin ka dhah si ay adeega bulshada loo gaarsiiyo. marka runtii caqabadahaas oo dhan waa laga soo gudbay. kadibna caqabadihii way sii yaraadeen. dadkii oo horumar sameynaya, dowlad baa la dhisay, dowladda Puntland baa la dhisay 1998kii. kadibna maamulka intuu dhisnaana shaqooyinka way sii wanaagsanaanayeen maadaama dalku yeeshay nidaam iyo kala dambeyn iyo maxay ahayd iyo horumar uu ka bilaabmay. marka shaqadii hay-addu tani markaasi xoog bay usii socotay. shaqadu ilaa haddeertan waxay ka mid tahay hay-adaha ugu waaweyn ee ka shaqeeya Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya bay ka mid tahay. maanta Tadaamun waxa ay xarumo ku leedahay magaalooyinka waaweyn ee dalka Muqdisho, Gaalkacyo, Garowe, Qardho iyo Baran gobolka Sanaag. waxbarashada hantidaada xoogga dadkaaga iyo garashada garaadkaaga ayaa looga ciilbaxaa baahiya dhibaatadii dalkan ka dhacday. waxa ay uga tagtay jiilal dhan dhaawac mustaqbal oo si guud u gaaray. kuwa ayaa waxbarashadii u socotay ka istaagtay. waxaa iyaguna jiray jiilal burburkii dhashay ama burburkii hana qaaday oo u baahday garab. waa halka ay xoogga saartay Tadaamun muddadii 30 sano ahayd ee tagtay. anigu waxaan ahay dadkii fursad u helay inuu ay Tadaamun waxa way la shaqeeyaan in ka badan waxa way 10 sano. waxaan kala shaqeeyay qaybta ugu muhiimsan oo dadkii asaasay ay uga dhigeen halka shaqadooda waxa way iyo xooggeedu ay tahay waa qaybta waxbarashada. 92 dowladnimada Soomaaliya hal sano burbursan tahay. marka waxa way hay-adan la asaasayo iskuulka Imaam Nawawi la bilaabayo waxay ka tarjumaysay oo hay-adan laf dhabar aragtideeda fog ka ah in isbeddelka bulshada la badbaadinayo waxbarashada ay number 1 ka tahay. hay-adda Tadaamun waxay u taagan tahay soo celinta rajada qofka Soomaaliga ah, ilaalinta karaamadiisa iyo dadnimadiisa. waxay Tadaamun u ordaysaa inay soo saarto kaadda Soomaaliyeed oo ka qayb qaata dib u dhiska Soomaaliyeed. saadaradeed waxaa runtii aniga shakhsiyana sharaf ii ah inaan ka mid ahaa
wax soo saarkii tadaamun oo aan ka soo bilaabay dugsi hoose dhexe sare oo aan waxa weye waxbarasho jaamacadeed la ii diray ilaa aan haddeer aan ahay maamulaha hay-adda tadaamun. anigu markaan ka mid ahaa ardaydii wax ka dhiganaysa iskoolka Imaam Nawawi in dee maanta aniga oo wasiir ah aan xasuusanayo in tadaamun ay arday badan oo anoo kaleeta ah waagaa wax dhiganayay maantana mas-uuliyiin anigu aan ku jiro ay agoon ahaan ay u caawin jireen ayna wax siin jireen wax un dhaqaale ah oo niyadooda ay ugu dhisayaan. taasna dee waxay sabab u noqotay inaan dee waxbarashadii ku dhiiranaadno niyaddii noo dhisanto oo aan guulo badan nolosha aan ka gaarno. tusaale ahaanba anaa maanta ummadda reer Puntland ugu filan waan uga mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii waagaas ardadaas ay danyarta garab istaagtay. ardaydii barnaamijka waxbarashada ee tadaamun ka faa'iidaystay waxa ay gaarayaan 145,225 isugu jira wiilal iyo gabdho. ardaydaasi intooda badan waxa ay wax ka barteen jaamacadaha dalka gudihiisa iyo kuwa dabadda waxaana ay barteen takhasusyo kala duwan sida shareecada islaamka, injineering, dhakhtarnimo, macallinnimo, dhaqaalaha, cilmiga beeraha, kan kalluumaysiga, xanaanada xoolaha, hal abuurka ganacsiga iyo siyaasaddaba. hay'adda waddaniga ah ee tadaamun waxa ay hirgelisay in ka badan 27 dugsi oo ku kala yaal gobollada kala duwan kuwaas oo isugu jira dugsiyo hoose dhexe iyo sare sida Imaamu Nawawi oo ku yaala magaalada Boosaaso, Qardho, Garow, Gaalkacyo, Galdogob iyo Laascaanood. iskuulladaas ardaydii ka baxday ubadkii ay dhaleen ayaa hadda wax ku barta isla dugsiyadii. qaar ka mid ah waalidkaasina waa barayaal halkii ay ku barteen ku bara. anigu waxaan ahay ardaydii ka baxday iskoolka Imaamu Nawawi Boosaaso. 5 arday oo loo diray dalka Yemen ayaan ka mid ahaa. annaga oo darajooyin fiican markii haysanay oo iskoolka darajo fiican kaga soo baasnay oo darajadan haysanay waxna loo ku raadiyay iyo iskoolka yagii iyo jamciyaddii tadaamun dadaal ay bixisay oo ay ku raadisay waxbarasho deeqa inay helaan ardadeedu xilli aysan jirin baciid waxbarasho deeqa keeni kartay ayay ahayd. anigoo ah mukhrijaadkii Nawawi inaan maanta dib aan anugu u maamulayo oo waliba iskoolka ugu ballaaran oo hadda gobolka ka jira inaan anugu maamulo ka ahay. waxaan si gaar ah ugu xusuusanahay inay ahayd waxbarasho kaliya aysan ahayn laakiin jaanibkeedii tarbiyada ee caruurta ma aragtay ay tarbiyo xoog leh ay siin jirtay iyo qudraadka ku jira inay ka soo saari jirtay. marka waxa ka mid ahaa qudraadkaas ay ardayda ka soo saari jirtay mawaahibta ardayga ku jirta in dibadda loo soo bixiyo. mawaahibtaas ardaydaas waxaa ka mid ahaa arday loo diyaarin jiray ducaad, arday loo diyaarin jiray saxaafad, arday loo diyaarin jiray maaragtay farshaxan iyo artist. runtii hay'adaasi waxay ku mudan tahay ammaan iyo dhiirigelin shaqada ay la hayso wasaaradda waxbarashada iyo adeegyada faraha badan ee marka la yimaado waxbarashada ay u qabtaan. hay'adda annaga noogu calaamadsan kaalinta koowaad weeye hay'adaha maxalliga ah oo nagala shaqeeya waxbarashada. waxaan isleeyahay marka wasaaradda waxbarashada wax weyn bay ugu taallaa tadaamun. annaguna aad iyo aad baanu hay'addaas iyo howlwadeenadeeda ka shaqeeya dad dhalinyaro ah oo aqoon-yahana oo runtii yaqaan shaqada ay qabanayaan iyo waxa ay hay'adda tani ay ka turjumayso baa ka shaqeeya. mashaariicda waxbarashada ee tadaamun hirgelisay waxaa ka mid ah jaamacadda Badda Cas oo ku taal magaalada Boosaaso, xarunta waxbarashada haweenka ee Xawataako oo ku taal magaalada Baran, kulliyadda xanaanada xoolaha magaalada Gaalkacyo oo ah kulliyadii ugu horeysay ee dalka laga asaasay kadib macadkii degmada Sheekh, waxaana kulliyadaasi markii dambe u diga rogatay jaamacadda Badda Cas xarunteeda magaalada Gaalkacyo. in iskuulka noocaaniga oo ka jiro Puntland waa wax wanaagsan weeye, waa horumar aan ku taabsano way tadaamunna aad ugu mahadsan yihiin Islamic Development Bank. jaamacadda tadaamun baa u howlgashay maxaa la yidhaahdaa institution taagan ahayd, iyadaa gorgortanka galaysay, iyadaa jaamacadda la hadlaysay, iyadaa fikirka waday, iyadaa dhismaha iyo dhulka iyo howlgalkiiba qayb ka ahayd iyo qayb bulshada ka mid ah iyo dad badan oo muxsiniin oo dhismaha iyo gacan ka geystay ay jireen. marka jaamacaddu waxay ka soo dhex baxday juhdigii tadaamun ay waday waxbarashada ahayd midhihii wey la soo ururiyo. macallin bay u baahan tahay tayada waxbarashadu aqoon leh. tababarka macallinka ayaa lafdhabar u ah tayada waxbarashada
tadaamun waxa ay tababartay 1768 macallin. intaa waxaa barbar socday in kor loo qaaday tayada aqoonta iyo farsamada guddiyada waxbarashada ee bulshada. dugsiyada ay hay-adda tadaamun la shaqayso waxaa loo tababaray 2288 qof oo ka mid ah guddiyada waxbarashada ee ay bulshadu dooratay. dhulkaan idinkaale iyo demakaan dhexyaal dhibaatiyo khayr ba idinka dhulkaan u maqan waxaad se dhaxal siisan biriba la dhowrayaa. wadani markaan leeyahay waa qof dantiisii asaga uu lahaa ka hormariyey danta guud ee bulshada ay leedahay. intii uu socday barnaamijka waxbarashada madaniga ah waxaa ka faa'iidaystay 9867 qof. tadaamun waxa ay qabataa tababaro iyo kulamo wacyigelin waxbarashada madaniga ah oo lagu dhiirigelinayo isqorista waxbarashada iyadoo la isticmaalayo fariimo gaagaaban, boorar iyo agabka wacyigelinta si ay haweenka, dhalinyarada iyo dadka nugul ama baahiyaha gaarka ah qaba u helaan xuquuqdooda, bulshadana ay uga dhex yeeshaan matalaad. daryeelka bulshada. barnaamijka daryeelka bulshada iyo u qareemidda dadka nugul ee hay-adda tadaamun waxa ay 30 sano ee lasoo dhaafay gargaar iyo kaalmo siisay 902,495 qof, iyada oo la dejiyey siyaasadda daryeelka bulshada iyo wacyigelinta oo ku qotonta ka hortag, ka jawaabid iyo awoodsiinta dadweynaha, iyo in ay adkaysi iyo fahan u yeeshaan dhibaatooyinka bulshada saamaynta ku leh ee ka jira deegaanka. barnaamijka daryeelka iyo wacyigelinta bulshada waxa uu sidoo kaleeto dardargeliyey ciribtirka caadooyinka iyo dhaqamada aan islaamka salka ku lahayn ee bulshada waxyeelayn kara. barnaamijkaasi waxa uu si dhow ula shaqeeyey wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo tan maamul goboleedyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha. sidoo kale barnaamijku waxa uu si dhow ula shaqeynayay barakacayaasha qaxootiga magangeliyo doonka ah, dadka dalka dib ugu soo noqday iyo dadka leh baahiyaha gaarka ah. caafimaadku waa aasaaska nolosha aadanaha. bulsho caafimaad qabta ayaa horumar hiigsan karta. tadaamun oo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka ee dowladda Puntland waxa ay kaalin firfircoon ka qaadatay bixinta adeegyo caafimaad. waxaa kaalmo caafimaad la siiyey 218,950 qof oo qaba baahiyo caafimaad oo kala duwan. waxa ay dadku kaalmada caafimaadka ay ka helayaan cisbitaalka xakamaynta qaaxada TB Control Hospital, xarumaha hooyada iyo dhallaanka MCH, iyo kooxaha caafimaadka ee gurguura oo dadka xoolo dhaqatada ah rugahooda ku gaarsiiya adeegyada caafimaadka. tadaamun waxa ay hirgelisay cisbitaalka xakamaynta qaaxada TB Control Hospital iyo 10 xarumood oo hooyada iyo dhallaanka ah, waxayna kor u qaaday helitaanka gargaar caafimaad. waaxda nafaqaynta. tadaamun waxa ay bixisay taageero iyo dadaallo lagu badbaadinayo nafta bini'aadamka. waxa ay kaalin lixaad leh ka qaadatay hoos u dhigidda xaddiga nafaqa darrada iyo gaajada, oo ay ku jirto daaweynta iyo ka hortagga nafaqa xumada. waxaa kaalmo nafaqo iyo quudin la siiyey 125,900 oo qof oo isugu jira carruurta 5 sano ka yar ee nafaqa darradu hayso, hooyada uurka leh iyo hooyada nuujinaysa. biyaha iyo fayadhowrka. mudnaantu waa biyaha. in ay wasakh oo dhan ka nadiif yihiinna waxa wehelisa in ay fududahay in la helo oo iyaduna muhiim ah. tadaamun waxa ay 30 sano ee lasoo dhaafay ka shaqaynaysay mashaariic kala duwan oo ay ka mid yihiin biyaha iyo fayadhowrka, waxaana ka faa'iidaystay 651,307 qoys. waxayna hay'addaasi qoday ilaa 26 ceel oo ah kuwa riiga loo yaqaano, sidoo kale 127 ceel gacmeed iyo 42 ka mid ah kayd biyoodyo ah kuwa biyaha haya ee loo yaqaano taangiyada oo laga hirgeliyey magaalooyinka, miyiga, xeebaha dalka. waxaa sidoo kaleeto dayactir lagu sameeyey 95 ceel oo riiga, kuwaasi oo laga sameeyey gobollada dowlad goboleedyada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo gobolka Waqooyi Galbeed. waxaana ka faa'iidaystay in ka badan 408,802 qoys. biyo dhaamin ayaa laga hirgeliyey goobaha abaaruhu ay saameeyeen ee ka fog wadooyinka, waxaana ka faa'iidaystay in ka badan 222,900 qoys. tadaamun waxa ay kor u qaaday xirfadda naadiga nadaafadda ee dugsiyada iyo guddiyada nadaafadda ee tuulooyinka iyo magaalooyinka, waxaana ay qaateen tababaro la xiriira howlaha ilaalinta nadaafadda. waxaa intaasi dheer in hay'adda tadaamun ay haamaha biyaha ee PVC gaarsiisay ilaa 102 dugsi si loogu kaydiyo biyaha dugsiyada,
iyadoo oo sidoo kaleeto laga hirgeliyey magaalooyinka biyogelinta leh iskuulladooda in loo sameeyo biyogelin. طبعا الأطفال المعرضون للمجاعة وإلى الأمراض المنتشرة. هناك تحذيرات حكومية وأممية بأن تحول أزمة الجفاف إلى مجاعة. howlaha kale oo samafalkaana waa garab socdaan. waxa ugu dambeeyey hadda xawaarihii dhacay mashaariicdii ay wadeen oo raashin qaybinta oo Soomaaliya oo dhan South iyo Central iyo Puntland ay ka qaybinayeen. waxa ku tusaysaa himilada iyo meesha mustawaha ay barayso waxqabadka hay'addu ay ku koobnayn oo kaliya bayskeeda oo Puntland ee Soomaaliya hadda wax ka qabanayso si national ayay u gudubtay baan leeyahay. mashaariicda gargaarka degdega ah oo isugu jirta raashin qaybin, biyo dhaamis, olole caafimaad iyo kaalmooyinka kaleba waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan sugnaanta cuntada iyo badqabka nolosha qoysaska danyarta ah. hay'adda Tadaamun oo kaashanaysa hay'adaha samafalka iyo bulshada Soomaaliyeed waxay gargaar gaarsiisay 12,533,428 oo qof oo ka kooban magangelyo doonka, dadka baahiyaha gaarka ah leh, xoolo dhaqatada iyo beeralayda ay saameeyeen abaaraha iyo isbeddelka cimilada. dhanka ganacsatada yaryar waxaa hay'adda wadaniga ah ee Tadaamun ay siisay tababaro kor loogu qaadayo xirfadda maamul iyo xisaabaadka ganacsiga yaryar dadka ganacsatada yaryar waxaana ay bartay sida loo sameeyo qorshe ganacsi oo taabagala. waxa ay ganacsatadaasi heleen maalgelin iyo agabkii ay ku ganacsan lahaayeen waxaana mashruucaasi ka faa'iidaystay 2,320 qoys oo kala jooga gobollada kala duwan ee dalka. hay'adda Tadaamun waxa ay dhistay xarunta dhalinyarada iyo nasashada ee Maandeeq magaalada Boosaaso, halkaas oo dhalinyaradu ay ku kulmaan oo isku wareystaan waxaana loogu diyaariyey meelo ay wax ku akhristaan ayna ka helaan tababarka xirfadaha iyo la talinta. sidoo kaleeto goobaha carruurta lagu cayaarsiiyo, garoomada cagaaran ee kubadda cagta lagu cayaaro iyo tan gacantaba, meelaha lagu jimicsado sida kuwa jirdhiska, hoolalka shirarka, maktabadii, cunnadii iyo masaajidkii ayaa laga helaa goobtaasi. waxay marka had iyo jeer ku dadaashaa inay fursado shaqo u abuurto dhalinyarada. fursadaha shaqada la abuurayana waxa ay ku dhex shaqeeyaan dhalinyarada environment ama deegaan u sahlaya u fududeynaya inay akhlaaqdooda iyo qiyamka iyo macnaha shaqadu ay leedahay ay ku dhex bartaan si beri ka maalin haddii ay bulshada ay u adeegaan ama meelo kale ay aadaan ay u noqdaan dad fariin xambaarsan isla markaasna values leh oo bulshada u shaqeysa. Soomaaliya oo ay ka dhaceen dagaallo sokeeye iyo xaalado bini'aadantinimo oo aad u liita waxa ay sababtay in carruur badan ay waayaan aabbayaashood iyo hooyooyinkood, halkaasna ay ku waayeen daryeelkii koowaad ee nolosha cidda ay ka heli lahaayeen. waaxda mashaariicda isku dhafan waxa ay dadaal dheer ugu jirtaa haqabtirka baahiyaha carruurta agoonta ah haysta, hase yeeshee ma dabooli karto baahiyaha carruurta agoonta ah ee ay saameeyeen duruufaha ka jira dalka dhammaantood. sidaa darteed waaxda agoomaha waxa ay taageero waxbarasho oo joogto ah siisay 220 agoon oo isugu jira wiilal iyo gabdho. sidoo kale hay-addu waxa ay bisha 12aad dulxij ee hijriyada qaybisaa xoolaha iyo hilibka udixiyada. bisha Ramadaan waxay afurisaa qoysaska aan awoodin iyo dadka danyarta ah inay helaan afurka iyo hilibka maalinta ciidda si ay u muujiyaan farxadooda, waana dhaqan islaami ah. mashaariicda isku dhafan waxay inta badan bixiyaan kaalmo ama gargaar ka badan hal mashruuc, mana ku koobna mashruuca kaalmaynta iyo daryeelka agoonta iyo mashruuca udixiyada oo keliya. waxaa sidoo kale ka mid ah dhismaha masaajidda, dugsiyada qur'aanka ah iyo in ardayda loo qaybiyo kutubta qur'aanka iyo kuwa kale ee diiniga si kor loogu qaado barashada iyo fahamka diinteenna suuban ee islaamka. guud ahaan mashaariicdan isku dhafan waxaa ka faa'iidaystay 1,383,042 qof. hay'adda Tadaamun waxay u jirtaa ama loo asaasay waxa weeye inay nooleyso ama sare u qaado karaamada bulshada Soomaaliyeed, adeeg hufanna siiso. taa micnaheeda ma aha in hay'adda Tadaamun ay tahay mid in dadku ay ku tiirsanaadaan kaliya u baahan, waa in Tadaamun waxay dhisaysaa in dadku ayagu isku tiirsanaadaan, aqoontooda iyo kartidooda iyo maxay ahayd awoodooda bay maxay ahayd soo saaraysaa iyadoo tababarro siinaysa ee sare u qaadaysa. waxayna u jirtaa dadku inay dareensiiso in iyagu awood leeyihiin ay ku qabsan karaan. Tadaamun uma jirto dadku inay idle ka dhigto oo dependent iyada ku tiirsanaadaan ama hay'ado ku tiirsanaadaan. Tadaamun waxay u jirtaa dadku inay iyadu empower garayso oo awood siiso dadku si noloshooda iyo maxay ahayd
iyo aqoontooda iyo kartidooda ula soo baxaan. oo guushaan iyo dabaaldegan 30 sano kadib aan sameynayno ma ahan wax tadaamun kaliya ay sheeganayso laakiin waa wax ay munaasabada ay farxadaas ay la wadaagayso dhammaan dadka la shaqeeya asxaabteeda hay'adaha maalgeliya iyo dhammaan inta fikirka iyo ra'yiga saliimka ah la wadaagta. marka hay'adda tadaamun wax lagu faani karo bay 30 sano uga dhigan tahay bulshadan Soomaaliyeed si gaar ah bulshada Puntland si gaar ah uga dhigan tahay inay ku faanto inay ilaashato inay ka qayb qaadato mashaariicdeeda inay soo dhaweyso waa wax aad u weyn ilaahay fadligiisii iyo asaaskii saxda ah oo lagu bilaabay daraadiis bay hadda heerka u soo gaartay marka waxay u tahay dadka oo dhan iftiin iyo rajo soo celin weyn 30 sano iyo dadka asaasana waxay u tahay himilo fiican. barnaamijyada hay'adda tadaamun waxaa ka faa'iidaystay madaxda dalka ee maanta kuwa bari iyo kuwa mustaqbalka dhow noqon doona barayaasha iyo baahitirayaasha bulshadeena. naftigu ayaa dagaal noolaha waa cirib jira wuxuu beeraa nacayb nabad guur buu dhalaa dhalaankii dunida naafee anigu nolol baan rabaa naruuriya caafimaad ninaanshaan doonaya adduun nabad.